بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كلنتي wanaagsan qaar sharafta leh waa sida Cabdiraxmaan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsantihiin maanta barnaamijkan ila daawanaysan haddii ilaahay yidhaahdo khayran insha allah maanta waxaan ka hadlaynaa kofeega ama qaxwaha iyo qaadka ama jaadka qur-aanka ku jira run ahaantii qur-aanka barashadiisu wax yar ma ahan بالمثل عبد الله بن عباس وكلاي النبي نادركي صلى الله عليه وسلم رسولك ننكي ودعي وقرانك وعلمي ودعي وحيري وقرانك علماء وين الاسلام كي نوفسرتي قرانك انا كهري وحيري افرت وصل ايام برني قرانك خصوصا عرب سو عرب نيتف هو اللغه العربيه هي kolka maxaad u malaynaysaa haddii qof luqadiisii ayna carab native ahayna so macnaha kama dhibadno hase yeeshee say tahayba qur-aanku wuxuu isugu jiraa taariikh science biology wax walba kolka fasiridiisa iyo aqoontiisa qur-aanku hawl yar ma aha waxaa kaloo jira qur-aanka alla wuxuu u talagalay subxaana watacaala inuu la jaan qaado sanad walba qarni walba waqti walba ummadda timaada kolka cid kaliya koobi kartaa fasirkiisa ma jirto marka macnaha dadaal dheeraada unbaa laisku dhaafay hadduu ilaaha yidhaahdo waana in linguistically waxa la yidhaahdo luqadda waa inaad si wanaagsan u taqaan luqada qur'aan alcarabiya kolka insha allahu tacaala waxaan maanta isla fiirinaynaa inuu qur'aanka ku jiro waxa soomaaliga lagu yidhaahdo horta ingiriiska waxaa lagu yidhaahdaa kaad af soomaaligana waxaa lagu yidhaahdaa qaad iyo coffee af soomaaligeenana ama carabigana qaxwe soo ma aha labadaasaan maanta fiirinaynaa in qur-aan ku jiraan okay waxaa jiray ummaddii la oran jiray ree saba arusaba dadkii ku noolaa meeshii la oran jiray waa yaman weeye sabadu waxa weeye waa waqooyiga yaman meeshan hadda sancata agagaarkeeda weeye xagga cadan maaha dadkii saba la oran jiray ee ka tirsanaa dalkan hadda iyo waddankan hadda yamana ayaa qur-aanka lagu sheegay suurad baana loogu magac daray ummaddaas saba la oran jiray waana suuratu saba waana suuradda 4 ee qur-aanka suuradda 4 ee qur-aanka ayaa weeyaan kolka alle wuxuu noo sheegay subxaana watacaala wuxuu yidhi calaamad aayad baa idinku sugan guryihii iyo meeshii ay deganaayeen dadkii la oran jiray reer saba kadibna alla wuxuu subxaana watacaala waxay lahaayeen 2 beerood ama 2 jardiin ama 2 maaragtay xadiiq oo kale waaweyn oo khudaar noocyadeeda kala duwan oo macaani ay ka bixi jirtay maaragtay kadibna alla wuxuu subxaana watacaala dhul fiican buu alla siiyey oo wanaagsan oo nimco leh iyo rabbi wanaagsan oo caadila ilaahay ku mahad celiya wanaagana ka shaqeeya hase yeeshee nimcada ilaahay siiyey waa ku gaaloobeen waa aayad qur-aanka waan geli doonaa macnaheeda computerkan tegaynaa wax kadib insha allah marka waxaa dhacday marka dadkii 2 beerood ee macaanaa khudaartii ay ku nimcaysan jireen waxaas oo dhan alla wuxuu subxaana watacaala markay nimcada ilaahay ku gaaloobeen kadib waxaa loogu bedelay 2 beerood oo beerina tahay qadhaadh beerta koowaad ay tahay qadhaadh min khidmin waa isla aragi doonaa qadhaadh ama soomaaligeena waa badan yaro xusuusta ana macalinka soomaaligaan ahay ama qaraar labada waan idhahnaa soo maa iyo beerta koowaad waxay noqotay qaraar beerta labaadna waxay noqotay marka beerta koowaad ee qaraarka macnaha waxay soo saaraysaa midho ama miro maxaan ku dhahaa qaraara ay soo saaraysaa beerta labaadna waxaa loogu bedelay geeda iyagana aan waxaba yaraatee wax midho ah dhalin wax midho ah ma dhalaan wax midho ah ma dhalaan waa uun maaragtay geedo aan midho dhalin weye oo iska baxa midho ma laha geeda bilaa midhaha loo sameeyey kolka waan isla arki doonaa waxaana ku barka aan ka fahmay waxa weeye geedka koowaad ee qaraarka macnaha iniyihiisu qaraarkiina waan tusi doonaa computerka isagoo ima jiray isagoo waxaasoo dhanba
geedkani waxa weeye waa qaxwe ama kofee. waxa weeyaan kii koowaad qaxwaa loogu bedelay. geedka labaad isagana dheer hadduu ilaahay ku leeyahay maaragtay ulo keliya isla markaana uuna qadhaan yahay laakiin midho aan lahayn isagana waxa weeyaan waa qaadka. soo khayra maaragtaan marka intaa waan isla garanay. marka taariikh yar marka aanan tuso marka kofeega si aad ogtihiin hadda taariikhda waxaa lagu dhigaa in gobolka kafa ee ka tirsan qowmiyadda amxaarada gobolkoodu ka soo jeedo magaca kofeena meeshaasu ka keenay gobolka amxaarada la yidhaha kofi yuu ka keenay magaca kow. hase yeeshee culimmadii hore islaamku waxay qaxwaha waqtigiisii caan buu ka ahaa bariga dhexe waxay dhammaantoodu wada sheegeen in maaragtay qaxwuhu asalkiisii hore uu ka yimid yaman. buu ka yimid asalkiisii hore. coffee ama qaxwaha wuxuu ka yimid yaman. soo ma aragtaan sidoo kale qaadka waxay hadda iyaguna sheegaan inuu ka baxo maaragtay bariga africa laakiin original ma aha. isagana saasoo kale isagana qaadka isagana saasoo kale asalkiisu waxa weeye khiyaaray waa yaman. labadaba yaman bay ka yimaadeen. hadda soo durbo maaragtaan macnaha casharka bilowgiis waxaan idiin sheegay waxaan ku yidhi kitaabka qur-aanka alla siiyey subxaana watacaala wuxuu iskugu jiraa taariikh wuxuu iskugu jiraa dhinac walba dhinac walbuu noogu jiraa. kolka waxa waaye macnaha maadaama uu taariikhda ay waxa iskugu jiro waxa weeyaan waa in taariikhda aad taqaanid. kolka haddii aadan kutubtii hore ka baran in qaxwaha iyo qaadku ay asalkooda yaman ka soo jeedaan arrin adag bay noqonaysaa. laakiin hadda waxaan ognahay qaxwaha iyo qaadku labadaba inay ka soo jeedaan yaman. ummadda yamanta la oran jirayna saas ahayd. kolka siduu qaxwaha ama kofeegu ku tegey dalka Ethiopia suu ku tegey marka intiina daawatay fiidiyoogii aan uga sheekeynayey boqortooyadii la oran jiray ximar alximri ee carabiga la yidhaahdaa ingiriiska waxaa la dhahaa himaride. boqortooyada waxaa idiin sheegay in ximar xaqiiqiyan ay tahay xamar weeye. xamar waa dadka reer xamarka la dhabo asalkoodu waa yaman bay ka yimaadeen. sidoo kale waxaa idiin sheegay in qowmiyadda etoobiyaanka ee amxaarada la yidhaahdo iyaguna ay wataan magacan ximar. amxaarku waa ereygii oo yaro corruption galay oo si kale loo akhriyey oo loo bixiyey saas. kolka waxaa ka cad halkaa maadaama jaadka iyo kofeegu labadaba gobolka amxaarada ay ka baxaan in dadkii la oran jiray ximyarka alximiruun carabiga markii ay waddanka tageen adigu qiyaastii 300 oo sano ka hor dhalashadii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam inay halkaa la tageen qaadka iyo qaxwaha. waayo dee adduunku dhan baa kuu sheegay nimanka tigruhu waaba xukumi jireen iyagu amxaar ma aha waa qowmiyad kale. hase yeeshee macnaha waa xamitig. waxaa kala ogaataan macnaha hadda taariikhda waxaa lagu dhigaa waxaa la yidhaha qowmiyadda amxaarada iyo dadkii arlusaba la oran jiray sham bay ahaayeen. sham bini nuux. hase yeeshee sham bini nuux ma aha. dadka yeman degi jiray waxay ahaayeen dadkii la oran jiray hamitig baa la oran jiray khiyaare hamitigna waxa weeye waxay ka timid xam bini nuux iyo ka timid shaamka ma aha. waayo xam iyo sham waxay wadaagi jireen hal luuqad oo la yidhaahdo luuqadda Arabic language bay wadaagi jireen. Arabic language yay wadaagi jireen labadan ummadood. soo ma aragtaan kolka waxa waaye macnaha qaadka marka bariga Afrika waxaa geeyey qowmiyadda amxaarada iyo qowmiyadda tigraha oo amxaaraduna ay yaman ka soo haajirtay tigruhuna ay yaman xukumi jireen. waayo labadooda tigraha ayaa da' weyn oo fac weyn. amxaaradu waa qowmiyadda xagga dama ka dhalatay. waxay hadda tigre uga badan yihiin waxa weeye dadkii ku shaadka guntiga ahaa ee dhulka Ethiopia degi jiray ayaa amxaaradu qalameeyeen luuqadana waa siiyeen wayna wada qaateen. sidaa darteed amxaarada
qowmiyadda maxaarada la yidhaahdo boqolkiiba 75 waa dadkii dhulka loogu yimid la socda saas kolka saasay taariikhdeedu ahayd kadibna maaragtay kenyana dee saasay dad ku qaateen waxyaabaha kale oo cilmiga macnaha qaadku maaragtay u kala duwan yahana waxa weeye qaadka waxaa bedela iyo kofeega waxaa bedela hadduu ilaahay roo yahay hadba beyaada iyo deegaanka lagu beero tusaale ahaan kofeega adduunka aad loo ammaanay waa Colombia nimankii Isbaanishka ayaa geeyey oo Ethiopia ka qaaday iyo Yaman ka qaaday soo maaha waayo waxa weeye dhulkooda buurahooda ayaa u saamaxay in kofeegu si wanaagsan u baxo oo maaragtay nutrition iyo macdan wanaagsan leh sidoo kalena Kenyana waa saas oo kale marka بالمثل caleenta shaah oo kale ingiriisku maaragtay hadduu la gurooyo Sri Lanka dhulkaas ku beeri jiray Hindiya Kenya uu geeyey Kenyana maadaama dhul maaragtay fertile ay leedahay dhul cusub ay leedahay saasaa keenay maaragtay inuu hadduu ilaahay idin roo yahay ay ku baxaan marka labadani quraanka ku jiraan marka hadda waxaynu yeelanaa insha Allah aayadihii baynu gelaynaa hadduu ilaahay yiraahdo waa isku soo noqonaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا إن شاء الله خير ماركتي فسرات دي عيدي لو رمي ومضي ريما نمعاد إلهي كوغالو ينقلنا مركا وأنا سورة السبع سورة أفريس الدناد عيد شنيتورناد الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان للسبع في مسكنهم آية الله سبحانه وتعالى لقد حقيقي كان waxaa ku sugnaaday lisabaa'in dhulkaas saba la oran jiray fii maskanihim meelihii ay deganaayeen aayatun aayad baa ku sugnayd alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala marka dadkaasi waxay lahaayeen jannataani laba beerood bay lahaayeen can yamiinin wa shimaalin laba beerood waxay lahaayeen jidka labadiisa dhinac ka kala baxaa dhinaca midig iyo dhinaca bidix kadibna waxaa lagula dardaarmay oo alle xaggiisa looga yidhi kuluu min risqi rabbikum cunaa la yidhi risqiga iyo quudka rabbigiin xaggiisa idinka yimid waxaa kaloo lagu yidhi washkuruu lahu ilaahayna ku mahad celiya baldatun dhulkiinnu oo baldatan ama dhulkaad haysataan macnaha baldatun waa dhul dayibatun oo wanaagsan dhul wanaagsan baad haysataan baa la yidhi beere wanaagsan baa laydin siiyey oo dhinaca bidix iyo midig ku kala yaalla ee ilaahay ku mahad celiya isla mar ahaantaana rabbiga aad ku mahad celinaysaana waxa weeyaan waxaad kaloo oo macnaha ogaataa waxaa lagu darayaa macnaha xataa wixii xumaada ee yaryar ee ka dhaca ee hadday ka toobad keenaan in laga cafinayo alla wuxuu subxaana watacaala wa rabbun ghafuurun rabbigiinna waa ka qafuurka ah ee dembi dhaafaha ah kadib maxaa dhacay marka alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi faacradow nimcadii iyo khayraadkii wixii la siiyey waa ay ka jeesteen faacradu way ka jeesteen kadib maxaa dhacay alla wuxuu yidhi subxana wa tacaala faarsalnaa calayhim kadibna waxaa lagu soo diray saylal carami waxaa lagu soo diray daadad iyo maaragtay biyo fatahaada oo lagu sii daayay dhulkoodii ayaa lagu sii daayey oo beerihii wax alla wixii ay beeranayeen oo dhan qaatay daad baa lagu fatahay iyo fatahaad biyaa lagu sii daayey oo beerihii oo dhan xididkuu siibay kadibna alla wuxuu subxaana wa tacaala wabadalnaahum waxaan ugu bedelnay fiiri waxaan ugu bedelnay hum iyaga wabadalnaahum waxaan ugu bedelnay bijannatayhim labadoodii beerood bijannatayhim beerahoodii waxaa lagu bedelay jannatayni laba beerood baa lagu bedelay xusuusta beera macaani khudaar iyo nimco ilaahay bay lahaayeen hadda waa laga bedelay daad baa loo soo diray daadkii baa qaaday kadibna labadoodii beerood waa laga bedelay waxaana lagu bedelay jannatayni laba beeroodoo dawaata soo saara ukuli khamdin wax la cuno oo kale oo qaraar laba beerood baa lagu bedelay oo tukoobaad ay tahay ukulu khamdin ereyga khamdin carabiga waa qadhaadh ama qaraara af soomaaliga waa qof si u yaqaano yaa lagu bedelay
alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxaa kaloo loogu bedelay wa athlin ingiriiska waa geedo maaragtay tamariski baa la yidhaha geedahan maxay yihiin waan geli doonaay geedahan tamariski waxa weeyaan ama waxaa kale weeya carabigana waxa weeye wa athli waxa weeyaan waxaa loogu bedelay geed aan midho lahayn hadda ogaada hadda labadu way qalaal yihiin wakuli khamdin kii qaraadhaa waa kofeyga waa qaxwiyi iyo wa athlin ku kaloo isagana qaraar laakiin midho aan lahayn fariid alla subxaana wa tacaala waxaa kaloo yiri waxaa kaloo maaragtay labada geed beerahoodii labadan beerood ee loogu bedelay waxaa kaloo lagu dhex daadiyey wa shay-in min sidrin qaliilin iyo geedo kale oo ula yaryar leh ereyga sidrin ingiriiska waxaa la yidhaahdaa waa geedka la yidhahda siirar haddaad ameerika joogto oo kale waad maqashay minneapolis haddaad joogto siirar waa siitar waa siirar waa geedkaas weeyaan asalkiisiina yaman iyo wuxuu ka bixi jiray meesha la yidhaahdo lubnaan maaragta saas oo kale ah kolka waxaa kaloo lagu bedelay waxaa kaloo lagu dhex daray baa la yidhi geedaha qaraar iyo geedka aan khudaarta eeniyaha lahayn waxaa lagu kaloo maaragtay lagu dhex daray geeda iyagana ula keliya ah ula yaryar leh kolka halkan fiiriya marka kani waa kofeega fiiriya alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wakulin khamdin geed iniyihiisu ay yihiin qaraadh cunidoodu macnaha ay qaraadh yihiin soo maaha okay kofeega waa kan beeraha kofeega waa kan markay baxayaan iniyahaasay leeyihiin waxana waa iniyaha kofeega markay qalalaan bay saa noqdaan soo ma aragtaan sawirkan soo ma aragtaan akhyaray waa kan asalkeedu hore waa kuwan marka hore waa cagaar haddii waa kan way bislaadaan guduud bay noqdaan kadibna way midoobaadaan kadibna maaragtay marka roast laga dhigo ama la dubana saasay noqdaan soo waxa garateen maaha ereyga dawaata waa soo saarid janatayni waa laba beelood ukuli khamdin waxa weeye waa midho qaraara oo la cuno ama saas oo kale wa athlin marka ereygan athli fiirsada carabiga wuxuu yahay athli carabiga waxaa la yidhaahdaa fiiri sometimes hadday luuqadda sharaxaadeedu kugu dhib tahay erey sir yar baan idiin sheegayaa macnaha si aad maaragtay google aad luuqadda uga baran lahayd ereyga markaad aragto ood google ku qorto hadduu carabi yahay hadduu ingiriis yahay ama hadduu wax kale yahay waxaad yeelaysaa waxaad taabanaysaa google image markaad taabato dhirta nooceedii yaa lagu tusayaa bilmatalan erey ingiriisa waxaad raadinaysaa oo kale apple waa tufaax macnaha tusaale baan kuu sheegaya dad badan baa yaqaana kolka apple haddii aadan ingiriis ku aqoon google baad gelinaysaa apple kadibna sawir imageka yaad riixaysaa iyo brest image iyo link imageka wuxuu ku saaray geedka appleka kolka ereygan macnaha athli waadan iyadu waa iyo weeye kuma jirto qayb ka mida maaha ereygan athli waxa weeye waxaa la yidhaahdaa geedaha aan iniyaha lahayn hadda ubax geed kasta flower ubax uu bixiyaa laakiin iniyo ama maaragtay midho ma lahan jaadkuna haddaad aragteen macnaha isagana maaragtay hadduu ilaahay idiin roon yahay waa saas oo kale bal waxaan tusayaa ereyga jaad baan idin tusayaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan fiirinaynaa maaragtay ereyga jaad baan fiirinaynaa qaabku yahay oo saaqidintii baa soo baxay okay waa kan soo ma aragtaan ereyga jaadku qaadku waa ereygii carabiga ee lagu fasiray athli soo ma aragtaan waa burash ingiriiska burash baa la yidhaahdaa soo ma aragtaan macnaha say isku egyihiin geed gaabahan saas aan iniyaha lahayn waxba lahayn maaragtay qaabkan maaragtay saas oo kale ah qaadkii waa kan soo ma aragtid waa kan macnaha kani waa macnaha qoryo ilaama keliyuu leeyahay iniye ma lahan waxna ma lahan hadduu ilaahay idiin roon yahay laakiin maaragtay kofeeg waad aragtaan okay ereyga athlina waxa weeye sidoo kalena waa geedaha la yidhaahdo tamariiska ingiriiska geedaha tamariiska la yidhaahdo isagoo haddaan ingiliish idin tusana fiirsada maaragtay
waxaan oo dhan waxaan doonayaa cilmiga qur-aanka linguist ahaan inaan ku sharaxo waa kuwan soomaalida qaadkii usoo dhow yihiin fiiri qaad waa kan macnaha geedkii asalkiisii waa kan soo ma aragtaan waa kan soo halkan ma aragtaan okay waa kuwii kale uu maaragtay u soo dhowaana hadduu ilaahay idiin roo yahay waa kuwan macnaha waa kan waa isku dhow yihiin soo ma aragtaan kolka macnaha ummaddaas reer saba nimcada ilaahay siiyey beeraha la siiyey subxaana watacaala beeraha barwaaqada oo jidka labadiisa dhinac ka wada bixi jiray iyo midigii bidix dhinac kastoo loo baydho ka bixi jiray markay ku gaaloobeen keliya macnaha markay ku gaaloobeen alla subxaana watacaala saa keliya laguma deynay labadoodii beerood ayaa ilaahay subxaana watacaala daad ku furay daad baa qaaday biyaa lagu sii daayey kadibna meeshooda waxaa lagu bedelay laba geed oo qaraar oo midna maaragtay qaraar yahay iniin qaraar leeyahay ka kalena uusan iniin lahayn uu dhaaran uu maaragtay geed dhuudhuuban oo maaragtay faraaryo keliya ama laamo keliya ah halkaasoo akhyaaray it makes sense soo maaha macnaha waxbaa laga dareemaya macnaha in hadduu ilaahay idin roo yahay labadan geed ee qaraar ee yaman ka yimid ee qaadkii iyo kofeega inuu naqaano inuu yahay labadan geed ee qaraar ee qur-aanka lagu sheegay anigu saasaan u arkaa hadduu ilaahay yidhaahdo waana fahankayga sheekh kale oo sharaxaya ma arag kolka insha allahu tacaala khayr saasaan maanta rajeynaya kolka insha allah khayr waxaad hadda aragteen maaragtay in labadaa geed sharaxnay inay asalkoodu taariikhda aan idin sheegay inay yaman kasoo jeedaan kala ah qaadka iyo qaxwaha inay ruuxaantii yihiin labada geed ee qur-aanka lagu sheegay ee maaragtay qaraarka noqday ee ummadda hore lagu cadaabay saan idiin carabaabay kolka wixii fikirkiina idinkuna insha allahu tacaala waad kasoo gudbisan kartaan intaa ka horeysa khiyaaray aan kulmi doona hadduu ilaahay idmo mar kale waa sayid cabdiraxmaan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu